بسم الله الرحمن الرحيم وهرينتا إله بمهد سكله إله وين خالق الراسق أيام مهد سكله أنت أمرك لقي ما ضه هدان سكله أودجنه وأف صومالي قرينه وحم مهد سكله هل أهاده هل أبوره هل كأبوره هل كأبوره سهل هلاية أنت هل هل اسكو هل شيكتا هل لمدودا هل كو أهاده intaas waa ilaahay subxaanahu wa tacaala intaa marka laga tago waxaan doonayaa maanta inaan laba mawduuc ka hadlo mid waa fariin waxaana fariinta u dirayaa oo ay ku socotaa ninka la yiraahdo Maxamed Saciid oo loo yaqaan Dahabshil oo ah ganacsade Somalilander ah oo reer Somaliland ah waxaan leeyahay Maxamed Saciid ilaahay cimriga caafimaadka waa ku barakeeyo halkan waxaan kaaga soo gudbinayaa waxaan hayaa fikrad ama new idea lagu horumarinayo adeega hadda shaqeeya ee dahabka adeega waxaan doonaynaa qaabka loo horumarin lahaa oo uu la tartami lahaa adeega miciisa ah ee saadka Maxamed Saciid waxaan leeyahay fikradaas waqti aan aad u fogeyn bay ugu dhalatay dadka oo dhan waxay isweydiin karaan maxaa ku keenay ninkan fikradan inuu helo carabtu waxay tiraahdaa alxaajatu ummatun min al-ikhtirac baahida ayaa waxay keentaa fikradda in wax la ikhtiraco ama in wax la abuuro baahida keenta ama necessity is the mother of the invention yacni in wax laga fikro ama wax la keeno waxa keenta marka waxa loo baahdo waqti aan aad u sii fogeyn waxaan u baahday lacag waxaan la hadlay qof ka mid ah reer Somaliland aanu ehel wadaagno wuxuu qofkaasi weydiiyay lacagta aan ku soo diray masjidta dahab aniga iyo dadkii ugu dhawaa waxaan ka weynay dahab meel cidla oo gadoonayna waan joognay sida daraadeed waxa igu kaliftay yacni inaanu weyno lacagtina sidii ku misgarayno ومع ذلك waxaan ka fikiray qaabkii loo horumarin lahaa dahabka baan ka fikiray fikradii baan hayaa fikradda waxaan doonayaa in la wadaago somtel iyo dahabshil baan doonayaa in la wadaago insha Allah taala fikraddaas waxay noqon doontaa fikrad lagu najixi doono dhammaan ummadda reer Somaliland dhiigooda ayuu raaci doonaa adeega dahab haddii Ilaahay yiraahdo aanu kulanno dahabshil inta marka laga tago waxaan doonayaa inaan ka hadlo mawduuc ayaamkii ugu dambeeyay ka socday baraha bulshada waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradii ahayd boqolka dhalinyarada ee soo jeedisay baaq shacab dhalinyarada waxaan leeyahay wax loo baahnaa baa keenteen aad baad u mahadsantihiin waanu idin dhiiri gelinaynaa dhalinyaradu waxay ka wada socdaan social mediaha yacni wixii wanaagsan waxa fiican in la isku taageero wixii xun in la iskaga digo ayaa wanaagsan sida daraadeed dhalinyaradu waxaan leeyahay buuq baad ka guurteen laakiin waxaad u guurteen baaqna waxa weeye waxa dawladuhu ay yacni inta badan lagu saxo aanday wada khaldan maraan xukuumadda iyo miceedana waxaan leeyahay kelmadda ah haddii cid keento fikir wanaagsan ama horumar kelmadda ah farmaajo ka dambeeya ama xamar baa laga maamulayaa kelmaddaas waa kelmad deelqaaf ku ah cid kasta oo marka lagu yiraahdo waxayna caayaysaa caqliga reer Somaliland waxay caayaysaa dadka aragtida fiican leh malaha Somalilandersku ma fakari karaan oo iyagu wax wanaagsan ma keeni karaan ma farmaajo baa wax fiican keeni kara mareer xamarkoon baa wax fiican ina fari kara inagu miyeenan caqli keeni karin aynu dalkeena khaladka kaga qaban karno dalkeena aynu ku horumarin karno xukuumadda waxaan leeyahay hadalkaas yaanu dadka kala qobqobin oo kala fogeynin hal laga waantoobo xamar baa laga maamulayaa meel heblaaya gacanta kula jirta dadkana waa dad dhalinyaro ah mudane madaxweyne waxaan leeyahay Somaliland 10kii sano ee ugu dambeeyay average ahaan celcelis waxaanu xisaabinay inay ka baxeen dad gaadhaya 15,000 oo mutacalimiin oo jaamiciyiin ah each year waxa qalin jabiya arday gaadhaysa 1500 oo arday 10 sano marka la times gareeyo waxay noqonaysaa 15,000 oo arday waxay barteen different fields
fakalla kala duwan bay dadkani barteen maadaama ay barteen waxa ka imanaya aragtiyo iyo maskaxo kala duwan waxay doonayaan dadkooda dalkooda iyo madaxdooda inay saxaan inay wax arkaan waxa marag badoon ah qaabka loo soo dhigay baaq shacab ceeb kaba hadlin wuxuu yidhi aynu ku soo noqono qaanuunka dalka u yaala aynu dalkeenna ka dayno sadbursiga sinaanta iyo cadaaladana aynu ku soo laabanno somalilan la wada leeyahay aynu ka shaqayno waanu jecelahay dalkayaga somalilan ha noolaataanu leenahay somalilan waa dal fiican waa dal horumaray kuma ceebaysna ciddii soo bilowda iyo cidda hadda haysa midna laakiinse ha lagu soo noqdo sharciga iyo horumarka dalka sidii looga wada shaqayn lahaa oo gacmaha la isqabsado maaha wax ceeb ah madaxweyne waxaan leeyahay madaxweyne waxaad ka shaqaysaa sidii aad u horumarin lahayd baaq shacab uguna sixi lahaa ugalana shaqayn lahayd hay-adaha kala duwan ee dowladda sida garsoorka golaha sharciga iyo xukuumaddu intuba sidaa ugu shaqayn lahayd baaq shacab danbay nagu wada jirtaa qolada difaaca ku jira mar walba oo xukuumadda wax loo soo jeediyo muraaradlaaca ama qaylada tifiyada nooga soo baahiya waxaan leeyahay war mushahar ha dhaafsan horumarka dalkaaga mushahar aad qaadato yaanu ku seejin horumarka iyo aayaha dambe ee dalkaaga yaanu ku seejin keeda daabad ma jirto ilaa ana arsaaqdeeda haya meesha ku dhimanayso iyo meesha ku dhalanaysana kitaabul mubiin baan ku hayaa loox maxfuudkan ku hayaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala taa marka laga tago waxaan leeyahay tani waa adduunyo ninka daya ma siisee ka diiday ka jecesha war qofku markuu adduunkan iskaga hadho oo dantiisa iyo aayihiisa iyo mustaqbalkiisa runta raaco iyadaa ku soo oroda duniyey ninka adigu ku daydaya ku doondoono duniyey aduunbaa ka sii dida ka kale digriyaye daacaadka un wada adigana dan kaa gelin daad baad ku noqotaa doc kastaba ka soo gala oo wuu ku magacaaban yahay wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyey maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu ahaa ninka hirgeliyey qaanuunka dalka u yaala dejinta somalilanna ka shaqeeyey isna allah u naxariista wuu ku magacaaban yahay riyaale wuxuu ahaa ninka adduunyada inaga iibiyey hirgeliyey dimuquraadiyadda iyo doorashooyinkiis dabajoogga ahaa ee caalamku inagu soo eegeen aynuna caalamka kaga qayb qaadannay inay indho fara badan caalamku inagu soo eegaan riyaalena wax kaasoo ahaa allah ka jasaa'igsiiyo siinaayo waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan ka dhigay 90% hal lacag madaxweynaha hirgeliyey laamiyo waaweyn oo hore loogu dhici waayey sidoo kale wuxuu ahaa madaxweynaha hirgeliyey darajooyinka ciidamadu ay ku kala sarreeyaan isaguna ku magacaabaya madaxweyne muuse berri ka maalin sida madaxweynayaashaasi ay uga tageen si la midoon baad uga tegaysaa maxaad ku magacaaban tahay ninka kaa hoos shaqaynaya madaxweyne yaanu magac isagu ma sugayo mushahar buu sugayaa madaxweyne yaanu ku lugoyn dalka waxa wanaagsan ee lagu soo jeediyo madaxweyne qaado dalku waa dalkeennii madaxweynihii dalkaa tahay doorashaad ku timi waxaad ku jirtaa cod shacab baad ku joogtaa haddii waxyaabo khaldamaan bulshadan waa bulsho badan waa bulsho kale aragti duwan waa lagu saxayaa waxaa lagu odhanayaa soo raac siraad almustaqiim waddada saxda ah wa maca daalik qaanuunka oo la raaca waxa weeye waddadii saxda ahayd ee somalilan oo la raacay qaanuunka oo laga leexdana waxa weeyaan xaydaabkii oo laga baxay sidaa daraaddeed waxaan leeyahay xukuumadda waxaan u soo jeedinayaa horumarka amniga caafimaadka tacliinta ilaahay laakiin waxaan leeyahay ujeedkayga waxa weeyaan somalilan aynu ka wada shaqayno qaabka u horumari lahayd iyo qaabka ay meel u gaadhi lahayd aynuna dayno kelmadda ah meel hebla ayaa ka dambaysa marka shakhsi reer somalilan si saliima oo sharaf leh oo wanaagsan uu u fakero dadkeena waxa ka buuxa ehlul aqli baa ka buuxa ulul albaab baa ka buuxa dadkeena aqliga u saaxiibka aanu dhageysano oo aynu ixtiraamno aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u habaliyanayaa dhallinyaradii soo jeedisay baaq shacab dalku wuxuu u baahan yahay in lagu soo noqdo sharciga
lana daayo lana joojiyo sadbursiga eexda kala lahaanshiyaha in intaba la joojiyo laguna soo noqdo cadaaladda iyo Somaliland la wada leeyahay sidii markii horeba lagu soo heshiiyey Somaliland inay ahaato Somaliland baar leh oo sumcad leh oo sharaf leh oo adduunku ma jirto inay ahaato ayaan jecelahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.